Here's outswinger. Maguire, Kane! Rifles it into the... Because City are on a different plane. De Bruyne, Haaland! Curry, back by McTominay! Red letter day! He'll get another go, and he'll twist away from Ake, and Rashford scores! De Bruyne! Benny, hit by Saka, what a goal! What a wonderful, wonderful goal! Bruno Fernandes, beautiful! Bukayo Saka, Arsenal ahead! Rashford has rifled it in! And... asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. akhyaarta hawada naga daawanaysaa kusoo dhowaada gacantooya show wararka cayaaraha idinka soo gudbino. waxaananu ku soo qaadan doonaa qodobada ay ka mid yihiin kooxda Paris Saint-Germain oo si rasmi ah ugu dhawaaqday tababaraheeda cusub. Arsenal ayaa ku guuleysatay saxiixa difaaci ay sugayeen iyo lacagta Arteta uu kharash gareyn doono oo 200 milyan kor u dhaaftay. qodobada iyo kuwa kale ayaa dhageystayaal soo dhowaada. aynu ku bilownay ciyaaryahan Mason Mount ayaa la siiyey lambarka 7 ee taariikhiga ah kadib markii uu u saxiixay Manchester United. wiilkan ku soo barbaaray kooxda Chelsea ayaa ugu dambeyntii dhamaystirtay ku biiristiisa Manchester isagoo lagu iibsaday 60 milyan oo gani. Man United ayaa xaqiijisay warkan waxayna soo bandhigtay sawirada ciyaaryahan Mount oo xiran maaliyadda casaanka ah markii ugu horeysay. waxaana ay markii dambe xaqiijiyeen in xidigii hore ee Chelsea uu qaadan doono funaanada number 7 oo ay caan ku ahaayeen Eric Cantona, David Beckham iyo Cristiano Ronaldo. si kastaba ahaatee waxaa la aaminsan yahay inuu jiro xidig ka xumaaday in maaliyadda la siiyo Mason Mount, waana xidiga mustaqbalka ee reer Argentine Alejandro Garnacho. taageerayaasha Man U ayaa iyagana aaminsan in maaliyaddu ay ahayd in la siiyo Garnacho beddelkii la siin lahaa ciyaartoygan Mason Mount. waa tahay haddaynu intaasi kaga tagno warkaas ee taageerayaasha Manchester United ayaa jeclaystay isla mar kale fariintii qosolka lahayd ee carada ka muuqatay ee Bruno Fernandes uu ku soo dhaweeyay saxiixa cusub ee Mason Mount. Mount ayaa ugu dambeyn dhamaystay kubiritaankiisa Manchester United isagoo oo lagu iibsaday 60 milyan, waxaana durbadiiba soo dhaweeyay saaxiibadiisa cusub ee kooxda kuwaasoo fariimo ugu diray Instagram-ka. Fernandes ayaa ka mid ahaa ciyaartooyadii ka falceliyey warka ku saabsan saxiixa Mason, wuxuuna u diray fariin ay caro ka muuqato balse kaftan ahayd. wataadeen intaasi kaga gudubna wararka Man U haddana bal Arsenal ayaynu eegi doonaa. Arsenal ayaa kala heshiisay kooxda Ajax saxiixa difaaca lagu magacaabo Jerian Timber iyadoo Mikel Arteta uu sii wado kharash gareynta xagaagan. Gunners ayaa si weyn u doonaysay daafaca dhexe tan iyo markii uu furmay suuqa kala iibsiga, laakiin haatan waxa ay ku guuleysteen saxiixa difaaci ay doonayeen sida uu sheegay journalistaha David Ornstein. kooxda Arsenal iyo Ajax ayaa ku heshiiyey lacag gaaraysa 34 milyan oo gani oo cash ah iyo 4.3 milyan oo gani oo ku xirnaan doonta bandhigga ciyaaryahankan. Timber oo isagoo 22 sano jir ah ayaa 47 kulan sabtay xilli ciyaareedkiisii la soo dhaafay, wuxuuna ku soo guuleystay 2 koob oo horyaalka Holland ah. kooxda Manchester City ayaa diyaar u ah inay suuqa xagaagan 45 milyan ilaa 50 milyan oo pound ku fasaxdo ciyaaryahan Bernardo Silva. Andre Onana ayaa diiday in uu u wareego Saudi Arabia si uu goolhayaha Inter Milan u riixo heshiis uu ugu wareegayo Manchester United. Newcastle United ayaa xiiseynaysa daafaca dhexe Gohi McGui walow ay Crystal Palace 60 milyan oo pound oo geniga Ingiriiska ku doonayso iibka daayarka reer Ingiriis. Diego Alcantara ayaa xiiso ka helaya Saudi Arabia walow aysan Liverpool weli dalab rasmi ah helin. sidaas waxaa sheegay wargeyska Times ee ka soo baxa waddanka Ingiriiska. dhanka kale kooxda Arsenal ayaa RB wadahadal kala yeelatay khadka dhexe ee Benjamin oo ay ka dhigan karaan beddelka Saka oo sii socda, sida uu ku warramayo journaalka Sky ee ka soo baxa dalka Jarmalka. kooxda Arsenal ayaa sidoo kale cadaadin karta heshiiska daafaca midig ee Lafikson. Arsenal, Manchester City, Manchester United iyo Tottenham ayaa ka mid ah kooxo dhowr ah oo xiiseynaya khadka dhexe ee reer Israel ee kooxda RB ee Oscar Brighton. goolayaheeda Robert ayaa isna dooq kale u ah Manchester United oo iyaduna doonaysa. Barcelona
waa kooxda barcelona ayaa saxeixa weeraryahankan Vitor Rieg kala heshiisay kooxdiisa Atletico Baranesa balse eegi doonta haddii ay dhibi karto xaddiga mushaharkeeda si ay u ogaato haddii uu ku soo biiri karo xagaagan January ama xagaaga dambe. Real Madrid ayaa Inter Milan iyadana weydiisatay qiimaha ay ku doonayso iibka weeraryahankeeda Lautaro Martinez sida uu ku soo warramay wargeyska ama joornaalka The Sport ee ka soo baxa waddankaasi Spain. Paris Saint-Germain iyo Christophe ayaa isku raacay in ay kala huleelaan iyada oo Luis Enrique uu noqon doono tababaraha cusub ee PSG. saasna waxaa ku warramay joornaalka Faransiiska ka soo baxay leeyahay Likubi. Callum Hudson-Odoi ayaa iguna go'aansaday inuu Chelsea isaga tago suuqa xagaagan iyadoo AC Milan ay ku soo biirtay liiska kooxaha doonaya. intaasi ayaan daawadayaal kusoo gabagabaynaynaa wararkii aad kala socoteen janalka gacaltooya show intaynu barnaamijka lamida ku kulmi doono nabadgelyo. Because City are on a different plane. De Bruyne, Harry, back for McTominay! Red letter day! He'll get another go, and he'll twist away from Ake, and Rashford scores!